السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواو جنالك أبا حسين. qisadan waxay ku saabsan tahay nin iyo xaaskiisa ay degnaayeen meel duur ah oo gurigood ku dhex yaalo guri buush ah. ninka waa uu ka qanacsanaa nolosha oo ku noolaa, laakiin xaaskiisa ma aysan ku faraxsanayn guriga ay ku noolaay buushka iyo xaaladiisa iyo waxa ay ku sugan yihiin. Bamaalo aan shaqada lama ku jiraa inta ka bax marka ninkeedu wuxuu ka teel jiray marka farxadeeda malaay uu keenaa malaay marka soo ugaarsan jiray malaayga luukan xataa ma qanacsanin. maalin maalmaad ka mid ah ninku uu baxaysta uu soo ugaarsada malaayga shabaqiisa ayuu biyaha ku riday asoo rajaynaya inuu malaay badan soo ugaarsado si ay xaaskiisa u faraxdo. maxaa yeelay asiga wax walba ayuu sameeynaa xaaskiisa si uu faraxdo. kadib si lama filaan ah shabaqiisa ayaa aad u dhaqaaqay wuxuuna damcay inuu soo jiido. asigoo ku jira soo jiiditaankii uu soo jiidayay ayaa si lama filaan ah ayaa biyaha ka soo baxay malaay. malaaygaas waxaa basiir xasanba malaay hadla ayuu wuxuu ku dhahay ani waxa rabta ku sameeyaa kaliya ayuu cuniniinta intoo yaa uu ka fajacay. waxa rabta iga dalbo ku sameeyaa kaliya cunin inta ninka tooyaa way oo biyo iska caliyay. shukran ma sanidee dhaday marka intaas oo cararay gurigiisa ayuu u tagay xaaskiisa uu sheego oo la yaabto. ilbaak markuu ku soo galay waxa ku bilaabay aaw malaaygi asoo ugaarsanaysa wuxuu ugu jawaabay war maanta wax moogtidee malaay hadlaya soo arkay oo waxa rabta iga dalbo aan ku sameeynaa ugu dhahay. markaasay taari war maxaa u soo qaadays malaaygaas wuxuu rabnaa noo sameeyay war maxaa sheegays malaaygu hadlay wuxuu dhahay cunni miskiin ay war miskiin abtaybu war nolosha aan ku noolna mujeedmiya nolosha aan ku noolna intee la aday maxaa meel ma bilaabay maxaa ka khaldan amal sidaas oo dhayna aday waaba ka yaabana iida waxay dhahay war noloshaan ku noolahay mujeedi meeshaan duurka anoo saanaa ku qurux badan yaa adma jecesha boorta socay ka tag hadda ay jeceshahay inta ilbaaka ka bixin sac malaayga inta uu tagtid ee ku soo dheh guri aniga aad deganay mid qurux badan ka dhig oo laga yaabo oo dadko dhan ka maseeran. ninka intoo yaabay oo hadalkeeda uu soo laaway oo kala balabeena ayuu iska baxay ayuu badda iska tagay. wuxuu ku dhahay malaayga uu wacno malaayahow amiirka ah malaayga markuu xog dhahay amiira ahay malaayga intoo uu wacay oo ku celceli kadib malaayga ayaa soo baxay. wuxuu dhahay maxaa rabta iga dalbo waxaan rabaa xaaskeyga inay guri qurux badan degnaad. wuxuu dhahay guriga tag oo arkaysaa guriga khasarta qurux badan way imaadeen kadib waa kana way arkeen guriga qurux badan oo laga yaabo ku dhahay kaaliska arag quruxdiisa. naagta laakiin weli ma aysan qanaciya wuxuu dhahay ma faraxsantahay waa kana waa heshay guriga markas guriyo jinti waa faraxsanahay maxaa inna farxeena imalaysa camal saasay dhahay. ninka marka hadalleedo kala labeena naagtii waxay basuuglayday waagi iloo ka bari ilaan weli ma faraxsan waagi yaa bariye suuxiyaa la gaaray ayagoo miiska cuntada xareereed ay ku joogaan ayuu ku dhahday war xaajiyo maxal ay gurigan amiirad oo kala ugu nool anigu waxaa rabaa boqorad aan magaalada dhan noqdo. ninka intuu ka fajaco ka yaa maxaa ka khaldano dhay boqorad ashiis maxaa macquul ma baahne admi jecsh ma jecsa baxo tag malaayga oo tagay si oo wacay oo soo dalbaday waan soo yeeshay waan soo aqbashay waxayna noqotay amiirada meesha boqorada oo ka talinaysa magaalada. ma kana idoo isfaafaalino soo waa kana boqorada naqal wax ninka soo gal hay ma faraxsanta oo dhayno waxay dhahay an ma farxeen waa faraxsanay. haweenkii la gaaray ninkii wuxuu ku duceysanaa inaysan dib dambe waxba u dalbanin balse naagtii ma aysan kiyee ayadana waxay basugal ayadib ilaa uu waaga ka bariyo ilaa uu ka bariyo sugeesi marka suuxii markii la gaarana waagiya bariyay naagtanna waxay dalban rabtaa waxa wabigii adigiyaa weyn marka waxay dhaaday ani markaan boqorad waan ahay dadka dhan waa u taliya laakiin weli ma faraxsani waxaan rabaa dayax iyo qoraxda inaan u taliyo aan daruuraha dego. ninka intoo ka yaawoona xasan u fiiriyay ninkaas waxay iska soo jartay naagtan ani mi jeclid inta ka bax naagta marka qosol shaydaannimo qosashi. ninkan uu soo baxay asoo murugsan oo rabo in xaaskiisa waxay rabto uu sameeyno. malaaygi ayuu wacay si uu markasta uu wajiray malaaygi waantu marka uu wacay wuxuu basugoya malaaygi inoo soo bax malaaygi marka soo baxo wuxuu dhahay malaay ani wiil xaaskeyga ma faraxsan wuxuu dhahay malaayga waa ka xumahay. malaaygi markaas wuxuu codsaday wixii ay rabtay marka inay daruuraha ku noolaadaan markay daruuraha ku noolaadeen rabeenbo
ninkan wuu soo baxay wuxuu fiiri naagtiisa oo maxaa yeelay naagtan waxay barabtay inay waqti iyo waxyaabaas ka taliso oo ay mas'uul ka noqoto macnaa iyada leh wax dhan ka qabatay naagtan rabtin oo waqti zamankii iyo muddadii waxaas dhan ka shaqeyso marka naagtan kore iyadii ninkan ma bas arkaa maxaa yeelay iyo wax oo asii iyo wabig iyo weynay badalbatino naagtan markaas ninka wuu soo orday malaayo soo laabto waxa ku dhahay yaaqay aan wiliga wax ma ka codsanin markaan ka codsaday aniga waxa rabaa marka xaaskay inay soo noqoto malaayo wuxuu dhahay marka macquul ma baan soo noqsay wuxuu dhahay aan wiliga wax ma ka codsanin hadda ka codsay marka aan waxa markasta ku ma jiri wax xaaskayga ay rabtay ka codsan jiray markasta ogeed adbo markaas ku dhahay waa sax runtaa waa tan wal qaad kara wada marka maxaa taadi aniga waxa rabaa kaliya xaaskayga inay faraxsanaato oo wax walba qanacinayo ina nolosha ku faraxsanaan oo ku noolaada kadib markuu dhahay bax iska baxba arkaysa marka wuxuu ninkii uu orday guri dhankii xaafadiisa uu orday wuxuu ba arkayba naagtiisa soo laabatay aad u faraxsan intee soo rootay habsiisay markaas ay ku tiraaday aniga ma ogeen waxaan haystay qiimaha uu leeyahay se waxaan ogaaday qiimaha aad adiga leedahay markaad iga fogaatay oo adiga dheeraatay markaas wuxuu ku dhahay aniga mar walba farxadaadan ka talinayay markaas waxay ku noolaadeen nolol aad iyo aad u qurux badan xaaskiisana waa uu la yaabay si ay isku bedeshay oo jeclaatay intaas ay u noogtahay qisadan xafadlan hadaad ku cusub tahay janaalkan subscribe iyo share dheh si uu ku soo gaalo muuqaal la mid ah bye bye